وفنانك شريف مايا جيك oo caan ku ahaa masraxiyada waqtigii berisamaadkii muddo ka badan 20 sano oo uu dalka ka maqnaa waxa uu maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir bahda Suugaanleyda iyo dadweyne kale aad u fara badan ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho maareeyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed Abwaan Cismaan Cabdullaahi Goore ayaa ka warbixiyay doorka uu ka soo qaatay fanaan Shariif Maya Jeek fanka Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa nin ku qaali ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir oo ay wada yaqaaniin Shariif Jeek sida la sheegay waa dadkii fanka Soomaaliyeed soo abaabulay ama haddii alla guriga magaca iyo sharafta iyo qiimaha ku lahay waa haddana dadka aan seexan markii uu xataa dalka ka baxay inta uu dibadda joogay cid kasta ee Soomaaliya iyo social media ay kala socoto guubaabadiisa iyo wacyigelintiisa Shariif Maya Jeek ayaa ka warbixiyay imaanshaha dalka hooyo wuxuuna ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed Soomaali oo mid ah anagu ku soo kornay oo ku soo barbaarnay markaan dhalanay waxaan aragnay dad isjecel yaa tahay meel sidii jirin magaca la weydii jiray taa magaciisa saddexaad ma la raaci jirin maxamuud le way bis waa dhamaaday magarad marka waxaan aniga bariya Soomaali weyn hadii inta meesha iskugu timid ataa khaluubtiina ka aqriyo quraanka haloo daceeyo markay maalin arko waxa dib noo ah 10 dhimatay 30 dhimatay 60 dhimatay maanta aniga waxaan soo maray Kenya soo maray ummadayna ku baaba'siin gacanta lagu dheega baahi ay haysaa lagu leeyahay taas ma qabi jirin maanta ceebtayna banaanka ay taal sharaftayna sharaf daradayna banaanka ay taal war sharaftayna Soomaaliya aan soo xilibaan Lutfi Shariif Maxamed oo kamid ah golaha shacabka ayaa ka hadlay muhiimadda fanaaniinta ay u leeyihiin dalka hooyo farxada ii tahay marka maanta in aan kala soo qayb galo aan ku soo dhaweynaa airportka marna nabadoon marna mujaajilista Soomaaliyeed ku soo dhawaaw dalkaaga hooyo waxaan rajaynaynaa wax badan inaad fanka ku soo kordhin doontid haddii Allaah awood leh uu ka raali noqdo Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.